madaxweynaha cusub ee noqonaya kii shanaad ee shacabka Somaliland ay u doortaan hogaaminta 5 sano ee soo socota mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhambaalaha Hambalyeyay ka helay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo iyo madax ka tirsan dawladda Djibouti ugu horeey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo ayaa waxa uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee loo doortay Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii shalay si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii dhacday 13 November war qoraal oo habeennimadii xalay uu soo saaray madaxweyne Farmajo ayaa waxa uu ugu duceeyay Muuse Biixi Cabdi inuu eebba u fududeeyo hawlaha loo igmaday waxaana madaxweyne Farmajo isagoo hadalkiisa sii wata uu yiri waxaan u mahad celinayaa dhammaan xisbiyada iyo murashaxiintii ku tartamay Somaliland sida dimuqraadiyadda ahayd ay u tartameen waxaan si dhow ula socday hanaankii diiwaangelinta ololaha doorashada iyo codbixinta oo dhammaantood ay ka muuqatay ilbaxnimo iyo dulqaad siyaasadeed madaxweyne Farmajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha cusub ay kala shaqeyn doonaan dardargelinta wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Somaliland dhanka kale madaxweynaha cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa hambalyeeyay wasiirka maaliyadda ee dalka Djibouti ahna xogayaha guud ee xisbiga RBB Ilyas Muuse Dawaale waxaana uu sheegay inuu si diiran u soo dhaweynayo doorashada Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub ee Somaliland Ilyas Muuse Dawaale ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu bogaadiyay saraakiisha mucaaradka sidii ay u aqbaleen natiijadii ka soo baxday doorashada waxaana uu sheegay inuu nabad iyo deganaansho u rajaynayo Somaliland qaar ka mid ah wargeysada caalamka ka soo baxa kuwooda ugu afka dheer ayaa waxay ka hadleen doorashada Muuse Biixi Cabdi journalka Washington Post ee ka soo baxa Mareykanka iyo Daily Mail oo ka soo baxa Ingiriiska ayaa far waaweyn ku qoray in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga talada haya ee kulmiye uu ku guuleystay doorashadii Somaliland ka dhacday 13 November